soo noqon wanaagsan daawadayaal qodobka ugu horeeya ra'iisul wasaare xamse oo ballanqaad u sameeyay dadkii ku waxyeeloobay hotel Xayaat warkaana waxa idin akhrinaya wariyaheena Cabdifataax Durdur ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo booqday dad dhaawacyo ka soo gaaray weer dhawaan lagu qaaday hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dhaawacyada culus ee aan dalka waxba looga qaban karin ay dawladdu u qaadi doonto dalka dibadiisa wuxuuna ra'iisul wasaaruhu intaa raaciyay in sidoo kale dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay qaadayso bukaano kale oo isbitaalka horay u yaalay kuwa oo qaba dhaawacyo kala duwan waxaan rabaa inaan halkan ka sheego dawladda Soomaaliyeed xukuumadda Soomaaliyeed waxaa saaran mas'uuliyad ayadoo gudanaysa mas'uuliyadaas dadkeeda ka saaran waxaan booqday isbitaalada waxaanan amray in la qaado oo dibadda lagu soo daweeyo dadka dhaawaca halista qaba dhaawacyada culus qaba ma aha kaliya kuwii ku dhaawacmay qaraxii jumcadii dhacay kuwa kale dad Soomaaliyeed oo kale oo caruur ku jirto oo ay noo sheegeen dhaqaatiirtu inaan waxba gudaha looga qaban karin ayagana waa ku darnay waxaana sida ugu dhaqsaha badan hadii Ilaahay yiraahdo u hawlgalaynaa caawa laga bilaabo sidii dadkaas dibadda loogu qaadi lahaa ee loogu soo daweyn lahaa hadii Ilaahay yiraahdo oo waajibka dawladda waana ku dhaqaaqnay insha Allah waana ka shaqeynaynaa